قد شرفت سيده heerka sare ah loo soo agaasimay isla markaana ka qabsoontay hotel rays ee magaalada Boorama ayaa ahayd mid loogu talagalay hoggaanka guud ee beelweynta Garxajis oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa guud ahaan gobolkan Awdal kuwaas oo kulamo kala duwan la qaadanayay waxgaradka ugu sareeya beelaha dega gobolada galbeedka Somaliland iyadoo munaasabada qada sharaftaana uu soo qabanqaabiyay gudoomiyihii hore gobolka Awdal Axmed Xaddi Sidci oo ka tirsan hoggaanka ugu sareeya xisbiga mucaaradka ee wadani hadda kala duwan oo madashaasi laga soo jeediyay ugu horeynba waxa goobtaasi ka hadlay gudoomiye Axmed Xaddi Sidci oo ka tirsan hoggaanka ugu sareeya xisbi mucaaradeedka wadani isla markaana aha soo qabanqaabiyihii qada sharafta maanta gobolku waa gobolkiini sidii loo sheegay ee maanta ودقمديدي isku arkeen aad iyo aadna waad u mahadsantiin imaatinka aad noo timaadeen iyo aqbalaadda aad naga aqbasheen inaad ka soo qayb gashaan qada sharaftan waxaan leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsantiin kuntii xaqiiqada aad u timaadeen gobolka hadaatiin waftiga ودقمدك Garxajis ee Suldaan iyo Garaad iyo Ugaas iyo intuba isku jiraan aad iyo aad baan uga faa'iideysanay imaatinkiinii iyo fariimayaad sideen iyo wada tashiga aad u timaadeen waxaanan rajaynayaa in beelaha aad u timaadeen oo halkan maanta la kulanteen hadday yihiin kuwii aad shalay la kulanteen hadday yihiin kuwii duraad la kulanteen hadday yihiin kuwa aad maanta la kulanteen inaad ay maxay ahayday hirgelin doonaan talooyinka aad siiseenna lagu dhaqmi doono ugaas xasan xaaji geelle oo ka mid ah hoggaanka ugu sareeya beelweynta Garxajis iyo suldaanka guud ee beelaha dega gobolada galbeedka Somaliland Suldaan Saleebaan Cali Ismaaciil oo dhankooga hadalka qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa dawladda soo dhaweeyeen ayaan uga mahad celinaynaa waxaan gaar ahaan mahad celinaynaa maanta gudoomiyaha Axmed Xaddi casuumada noo sameeyeen oo mahad celinaynaa ilaahay ku soo saaray waxay qabaa u galiyo carruurta oo barakeeyo helalka waa Allah oo barakeeyo adiyada Allah oo barakeeyo awlaadda oo barakeeyo isagana waa u ducaynaynaa gobolka dhammaan waa u ducaynaynaa casuumadana waa ka gudoomiye gobolkana soo dhaweynta halkan casuumadan waxa sameeyay oo siyaasiyiintii hore gudoomiyihiin gobolka Awdal ahaan jiray Axmed Xaddi Sidci ayaa sameeyay waan ducaynaynaa waan mahadsanyahay tolkiina wuu furtay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh si kastaba ahaatee hoggaanka dhaqanka ee beelweynta Garxajis ayaa iyagu ahaa kuwa ku sugnaa maalmihii ugu dambeeyay guud ahaanba gobolka Awdal kuwaas oo kulamo kala duwan la soo qaatay hoggaanka dhaqanka ee beelaha kala gadisan ee deegaanada galbeedka Somaliland Jaamac Xuseen Jaamac Dude Somali Cable TV gobolada galbeedka Somaliland